wardegdega dhacdo argagax leh ayaa laga soo wareemnayaa qaybo kamid ah gobolka Sanaag ee maamulkaasi Puntland kadib markii halkaasi gabar da'deedu ay ka hooseyso 10 jir kufsi wadareed halkaasi loogu geystay. wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira dhacdadaasi ayaan doonayaa inaan halkan idinkula wadaago intaan u gudubgelin xogahaasi oo faahfaahsan. waxaan idinka codsanayaa daawadayaal inaad muuqaalka like saartaan sidoo kalena aad ku soo biirtaan channelka subscribe-na aad saarataan channelka si aad u heshaan wararka iyo warbixinada aan halkan ku baahino markasta. waa tahay wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ee maamulkaasi Puntland gaar ahaan baadiyaha Xingolol ayaa wararku waxay sheegayaan in saacado ka hor halkaasi kufsi wadareed loogu geystay gabar da'deedu ay ka hooseyso 10 sano. gabadhan ayaa xaaladeeda hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalada ku yaala magaalada Garowe kadib markii halkaasi gaar ahaan deegaanka Xingolol ee gobolkaasi Sanaag kufsi wadareed ay u geysteen rag da'dooda lagu qiyaasay ilaa iyo 22 sano. gabadhan ayaa magaceeda lagu sheegay Samiira Cabdikariin waxaana muuqaalo lagu baahiyay sawiro baraha bulshada ay muujinayaan dhibaatada gabadhan loo geystay iyadoona indhaha banaanka laga keenay sidoo kalena jirdil xoogan loo geystay markii ay kufsadeen kadib. xaalad miir la'aan ah ayaa loogu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada Garowe gabadhan da'deedu ay ka yartahay 10 jirka. waxayna wararku ay xaqiijinayaan in weli laamaha amniga ee maamulka Puntland aysan ka hadlin dhacdadan argagaxa ku beertay dadka deegaanka kadib markii halkaasi baadiyaha deegaanka Xingolol kufsi wadareed loogu geystay Samiira oo da'deeda lagu sheegay 8 jir iyadoona xaalad miir la'aan ah xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala gudaha magaalada Garowe. laamaha amniga ee maamulka Puntland weli wax war ah kama aysan soo saarin dhacdadaasi iyadoona warar hoose aan helnay ay sheegayaan in raggii geystay dhibaatadaasi ay ka baxsadeen goobta ay kufsi wadareedka ugu geysteen gabadhan da'deedu ay ka yartahay 10 jirka. waa dhacdo argagax leh iyadoona ay noqonayso dhacdadii ugu murugada badneed toddobaadkan maadaama dhacdo tan ka argagax badan ay ka dhacday qaybo kamid ah gobolka Galgaduud kadib markii halkaasi hooyo iyo sidoo kale 3 gabdhood ay dhashay lagu gooracay hal goob isla markaana raggii dilkaasi geystay maxkamadda gobolkaasi ay sii deysay isla markaana ay sheegtay in cadaalad ay u weysay. muddooyinkii ugu dambeeyay dhacdooyinkan lamid ah ayaa ku soo badanayay qaybo kamid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland iyadoona galabta dhacdadaani laga soo wariyay deegaanka Xingolol oo ka tirsan gobolka Sanaag isla markaana uu ka arrimiyo maamulka Puntland. waa dhacdo argagax leh iyadoona dadka baraha bulshada ay aad ugu argagaxeen kadib markii gabadhan sawiradeeda baraha bulshada lagu baahiyay kuwaas oo muujinaya in indhihii banaanka laga keenay sidoo kalena surka tuuray ay gaga taalo iyadoona gabadhu xaalad miir la'aan ah lagula tacaalayo mid kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada Garowe. haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka waxaan ka codsanayaa daawade inaad YouTube-ka subscribe saarato sidoo kalena muuqaalka like saarto. laagtu waxay naga caawinaysaa in muuqaalkani dad badan uu gaaro gabadhan cadaalad ay u hesho raggii dhacdadaasi ka dambeeyeen gacanta loogu soo dhigo. mahadsanidin. arinta aan xaq u lahay xaqaygii ma helin caddaxa ugu dhacday dawladda ugu ciyaartay dibbanaan ahay kolle xaqaygiina ma helin aniga intaasaan soo gudbinaa. dadka geystay dadkan waaye 3 qofooda oo dawladdu ka cadaalad fali weyday kulli dadkaas waaye aniga macnaha haddii aan cadaalad waayey kolba ciddaydiaan iska aadaa haddii alla yidhaah. marka deegaankii ayaa dib ugu laabanaysaa? deegaankaygiyaan ku laabanayaa kulli haddii aan cadaalad waayey oo dawladda Galmudug ay ka cadaalad fali weysay eedeysanayaashii dadkayga xasuuqay. aniga magacayga Axmed Maxamuud Cashuur oo dhalay Moosto Axmed Maxamuud. haye awo
محمد. haye عيسو أحمد محمد. haye iyo hooyadood oo la dhaho Sahro Artan Ashti. Aankii kolley maxkamada ka soo baxay aniga meeshaan kolley markii hore dacwo uma imaan dalabaan u imid waa lay dalbay dowladda ay dalbatay galmudug oo ama ka tirsan dalabtiyaan u imid nasiib wanaag agoonka la yidhaa dagaal habeen aan heshiisyada dowladda waxay ka dhashay dhowraayey maanta oo ugu dambaysa waxaa dhalatay iyadoo qadiyadii meesha ka dhacday ay caddahay oo si saxa ay u caddahay oo maaragtay wax walba laba maray in maaragtay aan la kulmo oo haddii la yidhaa qadiyadaas aan kala kulmay maanta in la yidhi xaqaadii u dhaaro wixii ninka la yidhaahda kitaabma ama inta dadka kitaabsatid iridda ka bax adigoo qanacsan aniga intaasi handadaada oo aanan malaynin lama filaana ayaa igu dhacday markaa dowladda galmudug aniga maaragtay ma cadaalad samayn halkaasi maaragtay aniga xaaladeydii martay marka intaasaan kuu sheegaya waa gartay marka go-aanka maxkamaddu ma ahan mid aad ku qanacday mid aan ku qancay ma ahan ama si maaragtay mid cadaalad xambaarsan oo maaragtay cadaalad waafaqsan ma aha maxkamaddu maadaamay ku tiri waad inaad u dhaarataa ama iyaga lagu dhaariyaa dhaarinta kadib waxa ka dhalan lahaa ma kuu sheegeen oo go-aan oo ka soo bixi lahaa arrintaas aniga maaragtay xaqba uma lahayn in lay daariyo oo aan kitaab maro ama ninka la yidhaah nin qaa'ima oo dadkaygii laayay